bismillaahi raxmaani raxiim waxaana wanaagsan dhegaystayaal saaxiibayaal meel kastoo aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka falanqaynta caalamka oo xiliyadan oo kale aad ka daawataan warbaahinta Naafici Show waa 31 bisha shanaad May 2026 qodobada qaybtan aan idinkugu haynana waxaa kamid ah wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan oo xaqiijiyay inay ku biiri doonaan heshiiska Abraham Accords kaas oo Trump u soo jeediyay dalalka Islaamka qaar kamid ah waa hadii ay yiri Israa'iil ay ogolaato shuruudaha waa maxay shuruudaha uu ka hadlayo Hakan Fidan Faransiiska oo rabshado ay ka socdaan iyo Trump oo la ganaaxay u diyaar garooba qodobadaas oo faahfaahsan ayna ku bilownaa baro luqadda Ingiriiska maanta adigoo kalsooni sare isku qabo hadda waxaa la joogaa xilli Ingiriisku uu noqday luqadda ugu muhiimsan ee lagu shaqeysto waxna lagu barto laguna safro adduunka oo dhan haddii aad ku riyoonayso mustaqbal ifiya oo furan barashada luqadda Ingiriiska waa furaha ku horseedaya guul iyo fursado aan xadidnayn macadka barashada luqadaha ee Blue Screen Online wuxuu ku hayaa koorsooyin luqadda Ingiriiska oo ka kooban sida bilow dhexdhexaad iyo dhamaystir koorsooyinkan waxaa si xirfadaysan kugu baraya macallimiin xirfad leh iyadoo xoog lagu saarayo ku hadalka luqadda Ingiriiska si kalsooni leh qorista iyo akhriska si habboon oo sax ah maqalka iyo fahamka luqadda si qoto dheer xirfadaha nolosha iyo shaqada ku salaysan haddaba haddii aad danaynayso barasho barwaaqo ku horseedo ka bara Blue Screen Online oo guji calaamadda WhatsApp ee hoos caasimada Faransiiska ee Paris ayaa saaki ku waagbarisatay raadadkii rabshadihii xalay ka dhacay kuwaas oo ka dhashay dabaaldegii taageerayaasha kubadda cagta ee u dabaaldegay guushii taariikhiga ee kooxda PSG ay ka gaartay tartanka Champions League rabshadaha ayaa sababay burbur hantiyadeed iyo gubashada gaadiid badan iyadoo booliisku ay xireen 416 qof oo lagu eedeeyay inay ku lug lahaayeen qalalaasaas sida uu qoray wargeyska Faransiiska ka soo baxo ee Ligue Fagaro ciidamada ammaanka ayaa habeenkii oo dhan ku howlanaa xakameynta xaaladda kadib markii dabaaldegyadu ay isu bedeleen rabshado meelo kala duwan oo ka tirsan magaalada waxa kale war soo baxaya ayaa waxaa lagu sheegay in madaxweynaha Mareykanka Donald Trump la ganaaxay Trump ayaa lagu ganaaxay in uu bixiyo $200 markii uu ka soo dahay waqtiga loogu talagalay in uu shaaciyo saamiyada 10 milyan oo dollar oo gaariya ee ku maalgashada suuqyada saamiyada dhijitaalka taas oo arrin sharci darro ah mas'uuliyiinta Mareykanka oo looga baahan yahay inay u gudbiyaan maalgashi kasto isla xilliga ay sameeyaan sida uu baahiyay wargeyska Mareykanka ka soo baxa ee Washington Post wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan ayaa wareysi uu siiyay wargeyska Japan ka soo baxa waxa uu ku xaqiijiyay dalalka uu Trump uu soo bandhigay ku biirista heshiiska Abraham Accord si ay u xiriir u yeeshaan ama xiriir diblomaasiyadeed u yeeshaan Israa'iil inay hadda bilaabeen dood arrintan la xiriirta ayuu yiri isagoo intaa ku daray inay sidoo kale wadaan dadaalo lagu dhisayo isbahaysiyo difaac oo ay yeeshaan Pakistan Turkiga Saudi Arabia Masar dalalka khaliijka ku yaal iyo xitaa Iran ayuu yiri talaabadan waxa uu ku sheegay inay u qaadeen sabab la xiriirta Israa'iil inay dabeecadeedu ama dabeecad ay u leedahay inay mar walba la yeelato ama ay yeelato cadow si ay ugu cudur daarato isballaarinteeda dhulalka ay ku qabsanayso dalalka deriskeeda ayuu yiri waxa uu intaa ku daray waa in aan sameynaa isbahaysi si loo xaqiijiyo amniga dhulkeena ayuu yiri waxaase ku cusub hadalkiisa waa in uu si cad u sheegay haddii Israa'iil ay ogolaato dhismaha dawlad Falastiin oo ku saleysan xuduudaheeda 1967 markaa oo dalalka oo dhan inay diyaar u yihiin inay ku biiraan Abraham Accord isla markaana ay ku casuumi doonaan isbahaysiga difaaca ee ay dhisayaan